taa waxaan uga gudbayaa arrin kale oo aan doonayo inaan dadka u iftiimiyo oo xaqiiqa ah. ma doonayno madaxdeeda inaanu ceebayno waxaanay qabin amba waxaanay naanays u ahayn. hay-adda shaqaalaha dawladda iyo macadka shaqaalaha ee dawladdu muddo dheer waxay ka shaqaynayeen iyagoo la kaashanaya wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad wasiirka inay helaan amba bisleeyaan mashruuc lagu taabagelinayo amba lagu tayayo shaqaalaha guud ahaan. waxay yidhaahaan capacity building iyo waxa la yidhaha institutional building. waxay ka heleen mashruuca World Bank. waa mashruucii ugu weynaa ee World Banku ku sameeyay duhabeen lagu sameeyo shaqaalaha dawladda Somaliland. lacagtaas waxay dhigtay 10 milyan muddo soo socotay. shirar badan baa laga galay, procedure badan baa la sameeyay, say ku baxaysaa la dhigay, pre-deadline baa la sameeyay. markay dhamaatay bislaatay 10 milyan, 2 milyan oo ka mid waa cash, 8 milyan waa procurement. shirkadaha iyagana qandaraasyo loo siinaya amba dhisma ha noqoto, amba xafiisyo lagu casriyeynaya ha noqoto, amba stationary ha noqoto, amba muxuu ahaayey koorsiyo la siinayo shaqaalaha oo lagu dhisaayo ha noqoto. lacagtu lacag yar maaha. Somaliland 10 milyan way badantay. 2 milyan waxaa la yidhaahaa waa costiska maamulka oo waa cash. 8 kalena si dadban baa wax looga heli karaayo shirkadaha la siinaya. shirkadaha amba lagu naasnuujiyo amba commission laga qaato. bedelka maxamed mixile boqore wuxuu ku fadhiyaa inuu maxamed xaashi inankii xogeynta u ahaa aw 10 milyan inoo maamulo. waa sidii airport wasaaradda oo kale, wasaaradda wasaawada oo kale. waxaan ku soo gabagabeynaya dadkii madaxweynuhu ha ka qanciyo inuu madaxweyne ka yahay dalku isagu bedelka sameeyo iyo in laga hooseeyo.